inanta yar amaba cunugtan yar ee shaashada amaba horta kaaga muuqata waxay noqotay hooyadii ugu yarayd ilma dhashay inta la ogyahay adduunka korkiisa waxayna hooyo ku noqotay ay daawada maskaxdaadu la yaabi doonto waxayna ilmaheedii ugu horreeyey ifka u soo baxay gabadhan yar iyadoo jirta da'da 5 jirka magacaygu Cabdimajiid habadaan wanaagsan dhammaantiin aynu guda galno muuqaalkeenan oo dhammaystiran waxa lagu magacaabaa gabadhan aan maanta muuqaalkeena kaga hadlayno Lina Madina waxayna ay noqotay intayn adduunka laga warhayo hooyadii ugu yareed ee da'an hooyo lagu noqotay waxay dhalatay Lina sanadku markuu ahaa 1933 waxaanay ku dhalatay mid ka mid ah miyada ama baadiyada hadba ka u taqaana ee dalka Peru inta kadib markii ay Lina ay gaadhay da'da 5 sano jirka xilligaas oo sanadku ahaa 1939 bishii 7 ee waalidkeed waxay intooda ama cunugtooda lagu magacaabi jiray Lina ay ku arkeen caloosheeda oo marba marka ka dambaysa si weynaanaysa waxayna u geeyaan dhakhtarka balse ay u xog gaadaan amaba ka warkeenan waxa keenaya heerka inantoodan yar ee si weynaanaya marba marka ka dambaysa daba markii uu baaritaan ku sameeyay dhakhtarkii Lina waxa ugu horreyntiiba maleeyay inuu yahay barar uu beerku samaynayo laakiin haddii uu si taxadir ah ugu sii fiirsaday dhakhtarkii waxa uu gudaha caloosha Lina ka dhex maqlay garaac wadna kale oo ka dhex sanqaraya caloosha gabadhan yar ee lagu magacaabo Lina waxaana uu dhakhtarkii ka sheegay inay xaamilo amaba ay uur leedahay gabadhan yar ee lagu magacaabo Lina isla markiibana waxa uu u diray dhakhtarkii magaalada balse loo sii hubsado haddii dhakhtarkii magaalada uu baadhayna baadhitaano ka xog badan oo ka casrisan kii hore waxay Lina jawaabteed baadhitaankeedu markii ay soo baxeen noqdeen inay leedahay uur 7 bilood ah 3 toddobaadun kadibna waxay Lina Madina ay ilmaheedii yar ugu horreeyay ku umushay dhakhtarka iyadoo lagu qalay ilmaheedaas yarna waxaana uu ahaa wiil uu u dhammaystiran yahay caafimaadkiisu waxaana uu miisaankaas uu ahaa 2 kiilo iyo 700 gram waxaana ilmaheeda u bixisay Lina Gerard iyadoo ugu magac daraysa markii hawshan qalliinka u fududeeyay amaba madaxa ka ahaa intaas kadib waalidkii Lina waxay u guda galeen halmeynta iyo garabsiinta labadan ciyaal ah inantoodan ilmaha ay dhashay arrinka la yaab kale ayaa ahaa in wiilkan lagu magacaabo Gerard uu malan jiray inay walaalo yihiin isaga iyo hooyadii ilaa uu ka gaadhay da'da 10 jirka oo uu ogaaday in aysan Lina Madina aysan ahayn walaashii oo ay tahay hooyadii ilaa maantana lama garanayo aabaha wiilkan dhalay amaba ka dhalay gabadhan lagu magacaabo amaba inantan yar ee lagu magacaabo Lina Madina waxaana dhowr jeer la xidhay jeelka loo taxaabay aabihii Lina dhalay laakiin sababtoo ah waxaa loo maleynayay inuu soo ka dambeeyay falkan aadka u foosha xun amaba in uu uru yeelay inantiisa laakiin waa lagu waayay wax amaba caddeyn ah oo sheegaya inuu yahay aabaha wiilkan yar ee lagu magacaabo Gerard Lina warka ma ay ahayn waxa ku dhacay sida uu ugu dhacay iyo inta ka dambeysay urkan inay amaba ay xaamilo noqoto haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee ay uur ku qaaday Lina Madina iyadoo da'da intaas leeg 5 jirka ah jirta Lina Madina waxay noqotay gabadhii ugu yareed ee ku dhaco xanuun lagu magacaabo precocious puberty amaba haddii aan si kale u dhigno qaangaarnimada degdega ah taas oo uu sababayo amaba sabab u noqonaysa in la soo dedejiyo qanjidhada qaabilsan qaangaarnimada iyadoo aan la gaadhin xilligii ku habboon waxaana Lina Madina ay qaangaadhay markii ay ahayd 2 sano iyo badh oo keliya waxayna sidaas ku noqotay gabadh amaba inantii ugu yareed ee hooyo ku noqotay da'da intaa leeg xanuunkan aynu hore u soo sheegnay ayaa ah midaan wax saameyn ah ku yeelan dhanka da'da iyo caqliga qofkaba laakiin waxa uu saameyn weyn ku yeeshaa nafsada qofka iyo xitaa korriinka amaba dhararka qofka oo uu joojin amaba istaag ku imanayo intaas kadib waxay dad badani isku dayaan inay Lina Madina ay nolosheeda wax badan ka ogaadaan laakiin ilaa hadda waxay tahay mid qaadacsan oo diidan in lala yeesho wax waraysi amaba laga sameeyo wax documentary ah nolosheeda Lina Madina ayaa aan ka niyad jabin adduunka waxaana ay sii wadatay howlaheedii adduunyo waxaana ay xoghaye ka noqotay mid ka mid ah hay'adaha caafimaadka qaabilsan ee dalkaasi Peru waxaana wiilkeedii Gerard ay gacan qabatay ilaa uu ka soo baxayay heerka sare ee iskuulka waxaana ay guursatay sanadku markuu ahaa 1972 iyadoo jirta da'da 39 jirka waxaana mar labaad u dhashay ilmaheedii labaad waxaana uu Gerard amaba ilmaheedii koobaad ee Lina Madina waa adduunka korkiisa ka saarnaa amaba uu noolaa ilaa intii gaadhay da'da 40 jirka oo uu dhintay laakiin Lina Madina waa nooshahay ilaa maanta waxayna da ahaan tahay 88 jir ugu dambeyntiina muuqaalkan maanta intaas ku soo gabagabeynaya fadlan haddii uu qalmo muuqaalkani like saar sina share garow la wadaag asxaabtaada intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga salaamu calaykum